bismillaahi araxmaani iraxiim kusoo dhowaada jaalka maalmaha waxaan idiin soo gudbinaynaa qiso aad u xiiso badan islamarkaana ay ku jirto xikmad. qisadan ayaa waxay ku saabsan tahay inaad ka fogaato waxyaabaha keenaya inaad dadka qalbiga ka jebiso. wiil dhallinyaro ah ayaa wuxuu guursaday oo nasiibkiisa noqotay gabar aan markaas sida usii qurux badnayn. hase ahaatee waxaa gabadhani alla subxaana wa tacaala ku manadaystay dabeecad wanaag iyo qalbi furnaan. wiilkani markii uu guursaday kadib noloshii ma aysan u macaanin, wuxuuna bilaabay inuu si xun ula tacaamulayo, hadallo aan markaa wanaagsanayna ku dhahayo mar weliba, islamarkaana uu ku abuurayo qalbi jab. maalin maalmaha ka mid a ayuu wuxuu soo jiiday gabadhii, wuxuuna soo hor istaajiyey muraayad isaga oo markaa ku jeesjeesayo uuna tusinayo foolxumadeeda. gabadhii aad ayuu u murugootay, habeenkaana waxay jiifatay ayadoo aad u niijabsan. subaxii markii uu waaga baryay ayaa wiilkani wuxuu lahaa ballan oo ku sugayey jawaab shaqo cusub uu markaa doonayay, wuxuuna aaminsanaa inuu shaqadani soo heli doono maadaama uu lahaa aqoon fiican. markii loo soo bandhigay natiijadii wuxuu la kulmay wuxuusan filanaynin, aad ayuu u naxay, wuxuuna bilaabay inuu murugoonayo. wiilkii ku guulaystay ayaa wuxuu arkay sida uu wiilkani u murugaysan yahay, markaasuu wuxuu yidhi, haddii ay dadka hawsha mas-uul ka ah iga aqbali lahaayeen waxaan u tanaasuli lahaa wiilkan, maadaama uu aad u niijabsan yahay. waxaana aaminsanahay inuu alla subxaana wa tacaala meel kale iga siinayo, maxaa yeelay qofkii qof waalkiisa qalbiga u dhiso isagana alla ayaa qalbigiisa dhiso. wiilkii markuu maqlay hadallada aadka u adag ee lagu dhahayo ayuu wuxuu soo xasuustay xaaskiisa iyo sida uu niyadda uga dili jiray. aad ayuu uga shallaayay, wuxuuna ogaaday adduunyada waxa ugu qiimaha badan inay tahay inaad qof niyadda u dhisto, islamarkaana aadan ku dhihin waxyaabaha niyadda ka jebinaya. laga bilaabo maalintaa wuxuu bilaabay inuu xaaskiisa kula dhaqmayo tacaamul wanaagsan, uuna ka ilaalinayo ereyada niyadda ka jebinayo, wuxuuna alla subxaana wa tacaala ku arsuqay shaqo uusan weligiis ku fikirin. qisadan waxaan ka faa'iideynaa inay wanaagsan tahay inaan ka fogaano waxyaabaha keeni kara niyadjabka, maxaa yeele waxaa laga yaabaa inaad qof ku tiraahdo hal eray ay u sababto inuu noloshiisa oo dhan ay baaba'do. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ku cusub tahay jalka maalmaha, fadlan sabaskraab dhex gameelkan riix si ay kuu soo garaan waxyaaba cusub aan soo dhigi doono. mahadsanid.